maamul gobolka Banaadir waxaan u taaganahay mar walba inaan bulshada u adeegno dhinac kasta haddii ahaa lahayd dhinaca dib u dhiska wadooyinka iyo soo celinta bilicda magaalada ee nadaafadeeda muddadii koobneed aan xilka hayay aniga mas'uuliyiinta la shaqeysay waxaan ku guuleysanay saad ka warqabtaan in mashaariic waaweyn aan dhagax dhignay oo hadda wadadan halkan 26 Juun ay kamid tahay oo dawladda hoose maalgelinayso shalay ugu dambeysay wadadii dabka oo wada muhiim ah oo runtii magaalada Muqdisho wadooyinka ugu muhiimsan kamid ah hal sano ka horna la dhagax dhigay laakiin ayna shaqadeeda haba yaraatay bilaaban muddo hal sano ah dhaqaale darajada awgeed ayaa shalay waxaan ku guuleysanay in iyadana shaqadeeda dib u bilaabato kadib markii dawladda hoose xamar ay ku guuleysatay in ay dhaqaalihii shirkadii lagu heshiiyay qaybtii raatadii koobaad ay farta ka saartay wadadaas iyo tan 26 Juun iyo talaadii la soo dhaafo iyadana wadadii buundooyinka oo iyadana taagneed dhaqaale darre 6 bilood u taagneed shaqadeedii iyadana aan talaadii dib u bilaawnay intaas kaliya waxa kale oo wadadii Zooba oo iyadana gabagaba ah oo maalmo kooban gudood lagu xariga laga jari doono hadii la yiraahdo iyo wadooyinkii Banaadir wadooyinkii dhowrka ahay ee Shangaandhi ilaa maaragtay Nasiib Buundo ilaa Ciise Cabdi intaas oo dhan ayaa dhinaca wadooyinka ka socdo